dhinac walba ka qurux badan gabadh muuqeedu qurux badan yahay dhaqankeedu qurux badan yahay akhlaaqdeeda dhinac walba ka qurux badan haddaba culimadu ilaahay xigmadaha ku manaystay waxa ay ragga uga digeen inay 7 nooc dumar kamid ah ay guursadaan haddaba ninka ragga ah guurdoonka ah waxa laga rabaa inuu iska ilaaliyo hablaha sifooyinka noocan ah leh intuuna guursan ka hor waa talooyin murti ah sheekhani waxa uu leeyahay la tazawwaju min an-nisa'i sab'an al-annana wal-mannana wal-hannana wal-kannana wal-haddaqa wal-barraqa wash-shaddaqa intaasi oo noocba sheekhu wuxuu ku leeyahay ka digtoonow haddaba haddaan micnaheeda u gallo gabadha koobaad al-annana waa gabadha xanuunka badan leh waa gabadh mar walba leh waan xanuunsanayaa waxay radoo durto waan xanuunsanayaa iyaduna xanuunsanayn mar walba leh waan xanuunsanayaa waa gabadh tacbaan midhan ah oo xanuun ilaahay u keenin iyadu si saaraysa gabdhaha noocaasi oo kale ah iska ilaaliya buu leeyahay sheekhu gabadha labaad almar'atu almannaana waa gabadh mar walba kugu manna sheeganaysa maalinba wax ku siinaysaa anbay ku caawinaysaa kadib bay kugu manna sheeganaysaa mar walba waxay ku odhanaysaa waa anigii intaa ku siiyey waa anigii ku caawiyey waa anigii sidan ku yeelay gabadha mannashada badanna iska ilaaliya buu leeyahay saddexaad waa almar'atu alxannaana waa gabadha mar walba xaafadooda u socota waagii baryaba xagga xaafadooda hooyada baan u tagaya aabaha baan u tagaya waa gabadh socoto uun waa gabadhan zawjkeedii iyo kii qabay baan ixtiraamay iyo reerkeediiba socoto uun gabadhaasoo kalena iska ilaaliya buu leeyahay afraad waa almar'atu alkannaana waa gabadh aan reerkooda aan xushmaynayn adiga kula joogtaa waxay ka sheekaynaysaa hooyadeed iyo aabaheed aabahay sidan buu sameeyey aabahay saas odhan jiray hooyaday mar walba waxay kaaga sheekaynaysaa xaafadooda fadeexadda xaafadooda iyo reerkooda iyo aabaheed taasoo kalena adigana saas may kaaga sheekaynaysaa marka taasoo kalena iska ilaaliya buu leeyahay